Madrasada Cabdisalaan Ibraahim ayaa maanta qabatay xaflad xiritaanka tartan aqooneedka bisha Ramadaan. Tartanka ayaa lagu qabtay xaafadda Ramadhawi ee degmada Diinsoor. Xafladda oo ahayd mid si heer sare ah loo soo agaasimay ayaa ka soo qayb galay ardada madrasada, waalidiinta, carruurta, guddiga madrasada iyo maamulaha madrasada Macallin Saamiya. Tartankan ayaa maalgeliyay ciyaaryahankii hore ee Man City Cabdisalaan Ibraahim. Sidoo kale tartanka waxaa soo agaasimay Dr. Cadaay oo had iyo jeer u taagan sidii loo soo saari lahaa arday tayadoodu sareysa. Tartanka waxaa loo qabtay arday tiradoodu gaaraysa ilaa 50 arday. Tartanka oo maalmo socday waxaa ilaa kaalin afraad soo gaaray ilaa 4 arday. Ardayda kaalmaha ugu horeeya galay ayaa la guddoonsiiyay hadiyado lacageed iyo agab kale. Kaalinta afraad ayaa la guddoonsiiyay $35. Kaalinta saddexaad ayaa la guddoonsiiyay $60. Kaalinta labaad $80. Kaalinta koowaad ayaa la guddoonsiiyay $100. Ardayda ku guuleysatay tartan aqooneedka bisha Ramadaan ayaa waalidiintooda oo farxad ka muuqatay ayaa goobta xafladda ka mahadceliyay, iyagoo u mahadceliyay macallimiinta, ardada iyo asaasaha madrasada Cabdisalaan Ibraahim. ما شاء الله ناس ومعنا لما عمين في أيام شوان برد يوني بسرك أساس كسر وسلام إبراهيم وأساس ما شاء الله بقول محسن جزاكم الله خيرا من بعد سيدوات كسر لا يدار ما شاء الله مع عمين في أيام شوان تساوي يسوي زاكر تمسك تساوي كذا تدرس سيدوات كسر لا يدار ما شاء الله بقول محسن جزاكم الله خيرا قلنا لما بريز بقول ومستمتع معلمين دياني ذات ساعات كده بقول ومستمتع. dhanka kale waxaa goobta ka hadlay maamulaha madrasada Cabdisalaan Ibraahim. Assalaamu calaykum binaayin madaani Cabdullaahi madrasada Cabdisalaan Ibraahim tartankii ayaanta bisha Ramadaan noo soo codsiiyay diraan gudaha noo soo maanta saagidoon bisha taariikhda asalaatiyeed saagidoon insha Allah yaa ka kaalmo galeen diyaar duntusni marka ku baqaa ardaydii ku guuleysatay waran sooga ilaahay barakaatu anta limantan waliya anti oo kaalmo ku gali fideeda insha Allah fideeyo aan dhamaan salaam Hashim Hassan Suudey, warbaahinta Akuna TV, degmada Diinsoor ee gobolka Bay.